inta badan dadka qurxan waxay dheeryihiin dadka kale faa'iidooyin dhowr ah sida inay u fududahay inay shaqo helaan. macnaha qof qurux badan iyo qof iska caadiya marka ay shaqo doontaan waxay u badan tahay qofka zaa'idka u qurxan inuu shaqadaas helo. waxa kamid ah waxyaabaha qofka qurxan uga fiican yahay dadka kale. qofka quruxda badan looma maleeyo inuu shiid yahay ama ka soo jeedo qoys faqiiriin ah. haddii aad tahay qof qurux badan, baahi ayaa haysa iyo shiid ayaan ahay, cid ka aqbalaysa ma jirto. qof kasta wuxuu leeyahay qayb wanaagsan iyo qayb uu ka liito. maanta waxaan kula wadaagayaa laba khasaaro oo ay quruxdu leedahay ama dadka qurxan laba dhibaato ay markasta la kulmaan. qodobka koowaad, daraasado dhowr ah oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dadka qurxan badankooda ay yihiin single ama doob, guurka inay ka daahaan. daraasadan ayaa sheegaysa sababaha dadka qurxan guurka uga daahaan inay tahay laba arrin. marka koowaad, dadka kale waxay u maleeyaan inay xiriir leeyihiin. haddii aad tahay wiil oo qurux badan tahay, gabdhuhu waxay u maleeyaan inaad xiriir leedahay. haddii aad tahay gabar, wiilashu waxay u maleeyaan inaad tahay gabar xiriir leh. sidaa darteed waxay keentay in qofka keligii noqdo maadaama dadku isdhahayaan qofkan xiriir ay leedahay ama xiriir ayuu leeyahay ee ha ku hungoobin. sababta labaad ee marka dadka quruxda badan guurka ka daahisay waa inay yihiin dad tuba weyn, macnaha hamigooda ayaa sareeya. gabar aad qurux badan markaad dhahdo waan ku guursanayaa, waxaa laga yaabaa inay haysato dhowr dalab oo guur ah. marka adiga miskiinka waxaa suuragal ah in aadan dalabkeeda xamili karin ama aadan awoodin. ama waxay leedahay daraasadu xitaa qofka qurxan haddii uu yahay qof aan tuba weyneyn oo maaragtay hamigiisu iska yar yahay, dadka ayaaba u maleeyaba in qofkaas hamigiisu zaa'id yahay. macnaha haddii aad qurux badan tahay, qofka inta uusanba guurka la hadlin isagaaba ku dhahaya ama isdhahaya amay lacag weyn ka hadashaa amay. qiso yar ayaa ka dhacday xaafadan deganaa sanado ka hor. gabar ayaa ka timid Ingiriiska. wiilasha xaafadda deganaa mid kasta wuxuu ka baqayay oo uu islaa gabadhan Ingiriiska timid maxay kugu falaysaa adigan ciyaalka xaafadda. maskiinta cid la hadasho ayay weysay. ugu dambeynna waxaa dhacday gabadhii yar xaafadda deganaa oo tagsiila ah oo magaalada marka ay rabto u qaadi jiray inuu gabadhii aroos. dhowr bil kadib tagsiilihii wuxuu ka degay Ingiriiska si uu la kulmo qoyskiisa. qodobka koowaad, doobnimada ayaan ka hadalnay. qodobka labaad ee khasaaraha keenaya waa dadka quruxda badan caajiskooda ayaa badan. way jiraan dad qurux badan howlkar ah balse ma badna. waxay daraasadani leedahay qofka aad u qurxan ma jecla inuu isdhibo, ma jecla shaqooyinka gacmaha laga qabto. waxay jecel yihiin shaqo raaxa leh, mukeyf ah, qabow ah. dhaldhalaalka ayaa dadkaas intooda badan u muuqda. shirkad Talyaani ah oo magaceedu la yiraahdo Binotto, madaxa shaqaalaha shirkadaasi ayaa la wareystay. waxa uu yiri anagu ma qaadano shaqaale qurux badan, kaliya dadka quruxda badan xafiisyada iyo qaybta soo dhaweynta ayaan fariisinaa, balse hawsha shirkadda inteeda badan uma qaadano dadka qurxan. maamulaha shirkaddan ayaa si kaftan ah loo weydiiyay, adiga marka ay shirkadda ku qaadanaysay oo laga shaqaalaysiinayay maxaa lagu qaatay? wuxuuna isagoo qoslaya yiri sharciga shirkadda qofka weyn ma jiro. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka heshay. ha ka bixin muuqaalka adigoon like saarin. haddii aad nagu cusub tahay hadda nagu soo biir.